erayga qofku uu leeyahay anigu waan garaadsaday qof odhan karayo horta mid ku jira waan garaadsaday garaadsiga horta waa maxay waa garaadsaday hal mar istaag hal mikrofoonku geli kelmadda garaadso oo yaa garaadsaday dhammaantiin haddaa aamusteen anu waa garaadsaday waxaan u garaadsaday waxay garaadkun waa laba mid weeye midka caqliga ah iyo midka caqliga ah qofkii uusan garaadka caqligiisu dhammaystirnayn halkaa maanta ma yimaadeen oo buugga muhiimkaana ma soo doonteen taas waa maado garaadka kale oo de ah mataqaana in qofkii uu wuxuu u baahan yahay oo dee saadaalin karo taas waa garaad labaad waa wix isaga qof ka baxsan taasina de iyadu aniga ahaanteeda ugu jirtaayo taana waan garaad waxaan rabaa inaan ogaado magacaada dirsaa buugga ciwaankiisa waxaa waa garaadso intaadan guursan ciwaan qabta ma fahamsan ciwaanku waan fahmay aniga ciwaankaada waxaan jeclaan lahaa inuu noqdo guurso aad garaadsateed qofku goormuu garaadsi horta garaadsashadu waa maxay garaadsashadu waa maxay qof garaadku waxaa weeye qofkii noqdo qof mujaysa garaadsashadu waa maxay oo qof caqliyeystay qofku inuu caqliyeysto qofku aqoon la'aan miyuu caqliyeysan karaya aqoontii asma fahmay sax aqoontii waxaa weeye mataqaanaa qofkii warta inuu garanayo wixii lagu leeyahay qof aan reer yeelan ma odhan karayaa anigu aqoonta guurka waan daadiyey waan garaadsaday qof aan reer yeelan ma odhan karayaa anigu nolosha qoyska wax badan baan ka garanayaayo uma baahni inaan wax ka akriyo maya qofku marka maxaa kalifaya inuu yidhaahdo anigu waan garaadsaday uma baahni ma qof aan garaad caqli lahayn baa guursaday ama qof baan ama qof sabab kale waxaa inta badan aan arkay Facebook aan ku arkayay qofku markuu Facebooka soo geliyo buugga in lagu taag la yiraahdo adigu waad garaasatay meesha ka dhaqaaqo ma baanida akhrisan maxay ka dhigantay marka bulshooyinka oral society-ga inaguna ay ka mid ka nahay caqliga qof ka hormariyaan aqoonta caqliguna waxa bini aadamku ma shaqeeyo aqoon la'aan kuma shaqeeyo macna badan caqligu ma laha bini aadamku soo jaahil dhashay soo caqli meel markaan dhalanay bini aadamku aqoonta iyo tarjumada nololeed qofka aan guursanayn reer wili yeelan مواضيعنا أنا وحكي آخر أقولنا وملها هذول غير يرون تجربتنا أن وصلنا لنا أقول ملها لكن إن بلشدنا إنه أركان إنه قف أقول ليه يعني أو إنه جلسنا وأركب حكينا حوي إن oral society ولأن anthropology قاعد تبدو عيد في العمين بلشوي oral society عقلي اعتماد يعني كور مريان إنك بدن علمي إنه كور مريان لكن مشكلة بس يرجع بوجو معها جراسي جدا اللي حديده معها كلو أصين دورنا ولا الموسيقى تي اللي حديده معها ده بوجو كلية أما شري تمشيره هو أما تضبط تمشيره هو نلاش أنا تكوشرت سو intiina shaqaysa soo inta tababaro dheeraad oo aqoon kursi kororsanaysa lidima siiyo waayde sideed dhowr iyo toban sanaad wax soo baranaysa oo jaamacadaha soo dhigtana waayba aqoon ugu sii baahantiina shaqada aad sii kororsataa ilaa 8 saac oo kaliya ka shaqaynaysaa ka warama guurka nolosha guurka 24 saacadood ku ag taalo qof nolosha ka duwan oo ka aragti duwan oo ka barbaarin duwan oo bi'adu ku soo barbaariyo ka duwan tahay oo lab iyo digaad kala tihiin oo qaab dareen cabirisiin kala duwan tahay oo ay dareen qaab hadalkiinu kala duwan yahay ha fikirkiinu kala duwan yahay mashaakil xalintiinu ay kala duwan tahay baahiyiinu ay kala duwan yihiin sidee baad u fili karaysaa marka aad u filanaysaa adigoo buug iyo laba ka akhrin inaad tiraahdo waan aqoonaystay oo uma baahnina wax ka akhriyo doodaasa jirta سؤال بان كودينا مارو waxaa tiraahday qofku markuu guursanayo waa inuu de garaadsadaayo wax badan baa soo sheegtay oo diiwaano muhiim ah soo sheegtay marka diiwaanadaas qofku see u haasaawaya halkee maraya qofku isbaranaya su'aalahaas oo dhan markaa soo martid qofkii marka sameeyay su'aal timaado fahankii waa sii fogaanaya hadduu fahankii sii fogaado waxay sababtaa inuu guurkii yiraahdo qofku markuu wax ogaado ma fahanka fogaadanaysa fahanka soo dhawaada su'aal buu ku dhiibaysaa marka su'aalaha hadii la furfuro isii balaaran laakiin in la duuduubo oo de wax si madmadow loo liqo kadibna dib laga saxaano qaba la madmadoobayaha duuduub loo liqo ileen day sidoo anaga Soomaaliyeed ka wadhay curfigeeni hore markii la eego qofku wuxuu guursan jiray
qofku waxa leeyahay qofku wuxuu guursan jiray ku shaqeyn maayday dhaqankii hore ahaa fiican loo tahay laanu Soomaaliya hore aan nahay qofku wuxuu sameyn jiray waxa leeyahay inuu hebla lagu siiyo wataa hebla guurso wanaagsan taas lagu siiyo gabadha waa iskaysaa inay qof dhameystiran tahay ee uusan nafaqaan qof laan garaayo qofkiisa waxa ay qofkii ugu qanacday waa guursanaysaa idinka qofka isfahamaya laakiin inaad anigu asbaranaya heblo maxaa jeceshay maxaa rabtaa buuqaas oo dhan waxa weeye anigu wax qarribayo waa arrin aad u muhiim weeyaan arrin aad aan kugu aqbaliyana sax isku weydiin karayso laakiin nolosheenii hore aan ku noolayn way wanaagsaneed aad bay wanaagsaneed soo nolosheenii hore aan ku noolayn iska dhaafatii hore iska dhaaf 9-kii imisa wax bay ka dambeeyay maanta wax badan ma ka dambeeyay isbedel badan baa yahay shalay meeyaa la furitaanku shalay waa sidoo ay maanta maxaa iska bedelay wax badan baa isbedelay gabdhuhu shalay ma shaqayn jireen waagii hore ogarday qaar baa shaqayn jiray qaarna guriga joogi jiray wixii akademiga aqoon maanta imisa raba inay shaqeeyaan dadslada maanta gabdhaha wax bartoo dhan waa inay shaqeeyaan waa rabaan marka nolosheenu way isbedeshay hasaawiyo hore inuu hasaawi jiray hasaawo ka duwan maanta la yimaado way mashaakil cusub baa yimid in la furdaamiyo u baahan tahay mashaakishaasi ka duwan sida hore loo geli jiray loo galo hasaaweyn hore xitaa isku mid maaha maanta hasaaweyn wuu ka duwan yahay wuu macno beeray waa dareemaya meeshaad ka imanayso laakiin waa doodaan rabo inaan dhaliyo weeyaan hasaaweynii hore nolosheenu ku noolayn nolol ka duwan baa maanta ku noolahay isbedel bay inooga baahan tahay markaan waxaan leeyahay in berigii hore habkii loo noolaa hab wanaagsan oo qurxoon buu ahaa waqtigiisuu ku ekaa maanta mashaakisha jirta sababtay u jirta waxa weeye isbedel baa yimi isbedelkan dhugmo loo yeesho ogaal loo yeesho oo habkii hore loo hasaawi jiray wax laga bedelo way buugu siduu ku doodayo odada aqoon-yahanaa jooga meesha aad baan u maskax furnahay in la doodo oo su-aalo la isweydiiyana way fiican tahay mubaarak markaan kasoo tagno mawduuca noocaas oo kale ah meesha dhalinyaro jaamacadeed baa joogta kulliyada kala duwan dhigata majaalka haddaan kasoo wareegno oo majaalka dhiirigelinta iyo horumarinta nafta iyo waqtiga iyo waxa aan hal su-aal kaa weydiiyo annagoo markaa u gudbi doono inaan su-aalaha u furo aqoon-yahanka iyo dhalinyarada maxaad kula talinaysaa inay caadaad dhalinyarada jaamacadda dhiganaya ay samaystaan kuwaasoo caadaadkaasoo ka qayb qaadanaya in ay waxbarashadana ku guulaystaan noloshoodana ku guulaystaan mustaqbalkoodana ku dhisaan 1 2 3 caado oo aad dhihi kartid muhiim bay u tahay dhalinyarada jaamacadda dhiganaysa runtii waa su-aal aad u wanaagsan weeyaan oo ku faraxsanahay inaad hawshii adkayda dego yardiga rabtay nolosheennu waa wada caadaad weeyaan hadhow waxaan tilmaamayay qofku 9 waxa uu sameeyo maalinkii inay tahay caado routiina oo autopilot ah waxa la yiraahdaa qofku caadooyinka isaga sameeysta laakiin caadooyinkuna qofkay sameeyaan adigu caado laga yaabaa maanta ama ogaali ama ogaal u lahaw ama ogaal u yeelan caadooyin baad maanta samaysatay oo ku samaysmaya caadooyinka ku samaysmaya ha tabnaadana ma ha tugnaadaan adigay ku sameynayaan marka qofku inuu yeesho waxa jira caadaad ay tahay inaad iska jarto oo dabarkugu ah oo nolosha horumarka ka hortaagan waxa kale oo jira caadaad ay tahay mar haddii noloshaada 95% waxaad sameynaysaa ay tahay routine autopilot aad ku soconayso oo caadooda ay yihiin waxa muhiim ah maanta waxa weeye inaad qofku samaysto caadaad u fududeynayo waxa uu doonayo anigu markaan doonayo inaan buug qoro ma lahayn caado wax qoraal markaan doonayo waxbaan qori jiray facebookan postiyees ka soo dhigi jiray markaan doono laakiin markii aan u holaday inaan buug qoro ayaan ogaaday inaan lahayn caado wax qoraal inaan lahayn bariga hore caado wax akhris waan lahaa laakiin caado wax qoraal ma lahayn hadaa doonaysa inaad qoraan noqoto caado qoraal inaad yeelato weeyaan caado qoraal waa maxay inaad maalin walba aad wax qori karayso ilaa ay ku noqoto habit adigoo wax qoraya maalin walba aad aragto marka caadaadka waxa kamid ah caadada qofku inuu comfort zone-kiisa ka baxo wax waloo nolosha aad doonayso comfort zone-ku inuu qof ka baxo lafteedu waa caado sida caadada hadda anigu aan caadaysanay wax weey inaan goobada aynu ku raaxaysanayno ee xasiloon inaan iskaga jirno waa caado lafteedu waa caado inaad maalin walba samayso wax isku eegag waa caado waad caadaysatay autopilot baad ku shaqaynaysaa maskaxdaada way la qabsatay inuu qofku marka si constant oo joogta inuu goobadiisa uga baxo waa caado iyaduna wax waloo nolosha aad doonayso halkan waxa ku keenay waa wixii hore u sameyn jirtay waa habkaad u fikiri jirtay waa dareenka fikir qofka sidoo u fikirayo
waxay samaysaa dareenka ku dhalanaya wuxuu sameeyaa actionkiisa iyo ficilkiisa waxuu sameynayo ficilkana wuxuu sameeyaa routine marka uu soo laabto routiinkaasina wuxuu noqdaa habits iyo caadooyin buu noqdaa caadooyinkaasina waxay noqdaan characterka qofka shakhsiyadiisii bay samaysaa idan marka qofku inuu si joogtaa waxa maskaxdiisa soo galaya cidda uu ku hareeraysan uu la socdo inuu si joogtaa u challenge gareeyo uga baxo arrin muhiima weeyaan oo aanu ku qancin waayo wixii maanta meesha aad joogto waxa ku keenay wixii aad samayn jirtay waxa aad doonayso inaad noqoto iyo halka aad doonayso inaad gaadhan waxay kaaga baahan tahay inaad samayso wax ka duwan wixii aad hore u samayn jirtay qof ka duwan qofkii hore aad ahayd ayay kaaga baahantay taana waxay kugu kalifaysaa kugu khasbaysaa inaad samayso wax ka duwan wixii aad samayn jirtay haddii aad doonayso inaad nolosha wacyi iyo ogaal iyo aqoon aad yeelato oo aadan lahayn caado wax akhris waa inaad caado wax akhris samaysato haddaad doonayso inaad wax qorto oo aad hore wax u qori jirin caado wax qoral waa inaad yeelato wahaakada marka comfort zone qofka inuu ka baxo oo si joogta uga baxo aad bay muhiim u tahay reflection dib u eegis qofku inuu noloshiisa ku sameeyo hadday tahay waxa uu akhrinayo hadday tahay axwaasha iyo nolosha iyo waxa ku hareeraysan inuu dib u eegis noloshiisa ku sameeyo iyadu laftigeeda waa caado waa waxay ambiyadu lahaayeen culumadii iyo cudamadii dunida soo martay ay lahaayeen qofkuna aanu noolaan karaynin haddii aanu lahayn dib u eegis yamyan baa wuxuu lahaa aroor kastoo waa baryaba waxa ku agmara duruus haddii aanad sii akhriyin biraad imtixaamanta gaariyana wuxuu lahaa haddaan gugii kuu kordhaa gabow mooyee ku tarin garaad iyo waaye arag ilaan wax ma dhaanti geed inaad geed waxba aadan dhaamin ood iska korayso igana raalli adeeraga inaad korayso ood iska weynaanayso inaad weynaato oo ay ku kordho waxa caadi weeyaan wax adigu aad dooranaysa maaha cuntadu inaad cunto weeyaan gaajaduna isku diri waad kori adaa iska weynaanaya laakiin aad isbeddel iyo horumar iyo noloshaad ku tallaabsato si accidental iskagama timaado waqti munaasab oo la sugana kuma timaado asxaab iyo saaxiibo la isbarbardhigana kuma timaado inspiration iyo dhiirigelin sugana kuma timaado waxay ku timaado qofku inuu qasdo caadaad uu samaysto comfort zone-kiisa iyo goobada uu la qabsaday inuu ka baxo oo si joogta ah isku challenge gareeyo asxaab wanaagsan oo horumar ku tallaabsanaysa oo u socota ama gaadhay ama ku dhow halka uu hiigsanayo inuu ku xidho saameyn weyn bay isku leeyihiin bani aadamku waa social animal waa noole bulshaya oo isa saameeya inaad u meel dayato si joogta aad ugu meel dayato cidda ku saameynaysa laftigeedu waa caado u baahan tahay inaad samayso 6 bilood ba haddaanay noloshaada cid cusub aanay ku soo kordhin oo ku hinaaso gelinaysa ma koraysid waa inta kugu hareeraysan isku xuma taqaanaadeen haddaad ganacsi ku jirtaan isku xumaad ka wada sheekaysataan haddaad iskuulka sala dhigtaan isku xumaad ka wada sheekaystaan homework ka wada sheekaystaan iyo imtixaanka soo socda soo maaha iyo xoogaa yaroo arrimo kaloo yaroo la xidhiidha laakiin meesha aad u socoto waxaad u baahan tahay inaad yeelato cid gaadhay cidda kugu hareeraysan waxay jaangoysaa waxa aad nolosha ku qancayso qanaacaadkaaga iyo waxaad raalli ku noqonaysa jaangoysaa haddii aad buug aad akhriso bishii ama sanadkii aad buug akhriso laakiin inta kugu hareeraysan aanay buug soo rogin adaa isqancinaya waxaad isku qancinaysaa mar haddaad sanadkii buug aad dhamayso wallahi kuwan waad ka fiicanta yaa gooyey qanaacada iyo raalli inaad ku noqoto hal buug inaad sanadkii akhriso maadaa gooye mise saaxiibadaabaa gooye saaxiibadaabaa gooye haddaad 2 salaadood wiilasha haddaad 2 salaadood aad ku tukataan masaajidka oo jamaacadaad ka qayb gashaan aad ku tukataan saaxiibadaana aanay hal jamaaco aanay tukan aanay haleelin labadaasaad ku qancaysaa raalli baad ku noqonaysaa waad ogtahay inaad wax ka badan u baahan tahay laakiin waxaad ku dheereerinaysaa dad saaxiibada kugu hareeraysan waxaa leedahay wallaahi adagaaba ka roodha 2 salaadood baad masaajid kusoo tukataa raallinimada waxaad ku qancayso nolosha ayay saaxiibada gooyaan iyagaa jaangooya adigu ma dooranaysid iyagaa kuu dooraya idan marka mar haddii saaxiibada ay wax raalli aad ku noqonaysa iyo waxaad ku qancaysa iyagu ay kuu doorayaan why not cid aad doonaysa inay kuu gooyaan waxa raalli ku noqonayso maad ku soo biirisid cid ku hinaasa gelinaysa cid meeshaad u soconaysa hiigsatay gaadhay ama hiigsanayso ku dhow inaad noloshaada ku sugurto waxaasoo dhan waa caadaad halgeeba hore in idin u maqlin laakiin waa caado inay tahay inaad joogtaysaan dib u eegis noloshiina aad ku samaysaan goobada inaad si joogta aad uga baxdaan asxaabta aad idinku hareeraysaan qofku si uu koro sida geedkuba iyo dhirta iyo beeruhuba ay ugu baahan yihiin dhul carasana inay ku bulaalaan oo lagu abqaalo ama lagu beero ay ugu bulaalayaan marka lagu beero ayuu qofkana wuxuu u baahan yahay biyo koriimo haddaan ay saaxiibada kugu hareeraysan aan ahayn bulsho dad koraya haddaan ahayn adiguna koritaanku waa kaa dheeriyay qofka bini aadamka waad garanaysaan oraada caanka ay tiraahda qofku average celcelisaan wuxuu noqdaa
shanta qof ee ku hareeraysan celceliskoodu yihiin haddii shanta qof ee kugu hareeraysan ay yihiin dadaan hal buug bishiina akhrin adiguna hayaat way kaa dheertay waa kugu bishaaranaya inaad qof gooni socdo oo asxaab iska leh laakiin inta badan ka maqan oo gooni socdo meel luuqyada iyo laabadyada la gala buugta haddaad tahay taa waa kugu bishaaranaya laakiin waxay kugu hayaan resistance fara badan oo gudahaaga ka jira oo ay kuu fududaan lahayd haddaad saaxiibadaada ay ahaan lahayd dad wax akhriya marka marwab inaan dheereeyo inaasa kusoo koobaya